si wax loogu qabto looga gargaaro saameynta iyo khasaaraha fatahaadaha webiga Shabeelle ka soo gaadhay bulshada ku dhaqan degmooyinka jiinka webiga Shabeelle ee Qalaafa, Mustaxiil iyo Feerfeer ayaa waxa uu xafiiska maareynta khatarta musiibooyinka ee dowladda Soomaalida wada gaarsiinta gargaar isugu jira raashin, qalabka guryaha. Centerka Mirdhis waxa uu ka mid yahay goobaha ay fatahaadu saameysay isla markaana la gaarsiiyay gargaar isugu jiray raashin iyo qalabka guryaha. Shacabka Centerka Mirdhis oo soo dhaweeyay gargaarkan ayaana soo jeediyay in gacan qabashadani la sii wado. meel aan joogsana garan la'aan xoolo iyo dad intee ka dhaxlaba bilcaan kaal iyo Mirdhisaan ku dhex jirna antan meel fadhiisan la'aan wili aan raaraha biyaha nooga dhex yaala guryooda meel aan ka joogsana la'aan fatahaad ma tiraay meel oo hataa dab ka shidana garan la'aan wax aan haysan mala beerkaan beer loo muuli xoolo ma haysan qaarkaan dadaa waxaasta dadka rafaad iyo dhibaato kala goynaysa inana la soo badayaan rabna waaba noo soo bilaw dawladda waa u baahanahay waaba bari aad aan baa uga faraxnay saas ka darna waa rabnaa anagoo ka tirsan degmada Mustaxiil qabalaha Mirdhis wax alla wixii badar ahay wax alla waxaan maanta aan sheesanayna wax aan faro ku hayna malaha xoolaha qaarkood biyahaas ay ku gootoomeen badda way raaceen webiga ay raaceen oo meel qansax la yiraahday aga shubeen ilaahay waxaan ka rajaynaynaa rasuulkiisa aan ka rabnaa dawlad deegaanka iyo golaha federaalka ina sida oo dhaqsiyaha badan gargaarka noolu soo keeno maanta noolu soo bilaab in si dhaqsiyaha noolu soo saaciido oo noolu keeno dawladda ka cuseenayna hooy ma haysano waad aragtaan waxba adinka ma sheekeynayno biyii baan dhex taaganahay xoogooga noola keenay waxa noola soo gaari noolu soo saaciido ma fadhina meeshan kuna sakali ma ama qablaha Mirdhis waa kala baxay qabalahan ka soo baxnay waa qablaha Mirdhis oo fatahaada fara badan inuu qabsadeen dhibaatooyin inuu qabsadeen alaabadii naga raacday ilmihii naga dhibaatoodeen marka hadaa ilaahay yiraahdo banaankan cidlaan iska degan haddana way noo soo bilaabatay caawintii koobaad maanta way noo imaatay wax waliba waa baahan waxan cuno waxan guriyo ku dhisano wax waliba waa u baahanay aadan u dhibaataysanayba gargaarka raashinka ee la gaarsiinayo bulshada waxaa sidoo kalena garab socota in dadka ku go'doonsan qaar ka mid ah tulooyinka degmooyinkan laga daadgureeyo iyada oo la adeegsanayo diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helicopterka. goobtan hadda aan ku sugannahay waa qabalaha saddex baar waxaan ka soo badbaadinay qabaloosaadkiisa Imaan Ciis dad gaariya 300 qoys oo maalmahan ku go'doonsanaa goobtaas dadkaas oo iskugu jiray dad waayeelo ah dad curyaamo ah dad aan awoodin inay macnaha biyaha ay maraan dadkaas waa waxay leeyihiin 300 oo qoys taas oo lagu soo sameeyay bixiyay helicopter hadda inoo muuqato ilaa 3 cisho ayaan soo daadgureynay waxaan ku guuleysanay inaan dadka ka soo badbaadino fatahaadii webiga Shabeelle ee ka dhacay degmada Mustaxiil qaasatan qabalaha saddex baar qabal hoosaadkiisa Imaan Ciis waxaan mahad u celinaynaa dawladda federaalka iyo dawladda deegaanka Soomaalida oo gurmad adag nala soo gaaray oo helicopter iyo raashin dadka la soo gaaray ayaan mahadda iskalan u mahad celinaa ilaahay ka sukow. raashinka iyo qalabka guryaha ee ilaa hadda la gaarsiiyay goobahan ayaa waxa warbixin naga siiyay wakiilka xafiiska maareynta khatarta musiibooyinka ee gobolka Shabeelle Mudane Cabdi Axmed. waxaan soo gaarsiinay dadkan oo diyaaradda ku soo gaarsiinay 290 haaf oo bariisa iyo 300 oo qoys alaabtoodii oo partial kitka waxa loo yaqaan ayaan soo gaarsiinay 290 ka haaf Mirdhis iyo qabalaha saddex baar labada ayaan u kala qaybinaynaa berrina insha Allah waxaan ka shaqayn doonaa 3 qabale oo degmada Qalaafa hoos tagta oo sidaas oo kale dad ay ku go'doonsan yihiin ayaan raashin iyo alaab u geyn doonaa insha Allah taala. sidaydii muuqataba waxaanu hadda ka sugannahay mid ka mid ah qabalayada oo saameeyay fatahaada webiga Shabeelle oo ah qabalaha amaba centerka lagu magacaabo Mirdhis oo ka tirsan degmada Mustaxiil. qabalahani waxa uu ka mid yahay qabalayada amaba centerada ay saameeyeen fatahaada webiga Shabeelle isla markaana ay ku barakaceen dad aad u tiro badan oo ku dhaqan qabalahan aad arkaysaa isla markaana ay biyi fatahaadu ay galeen guriyihii ay ku noolaayeen isla markaana ay saameeyeen beerihii iyo xoolihii ay dhaqanayeenba. Mustafa Yuusuf, telefishinka caalamiga ee SRTV, centerka Mirdhis ee ka tirsan degmada Mustaxiil.